kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray oo dhawaan ku soo wajahan magaalada Muqdisho xilli doorashada dalka la doonayo in la qabto bisha Febraayo ee soo aadan ra'iisul wasaare Roble oo ku ceebay go'aankii golaha wasiiradu ay shalay ku aqoonsadeen in Alif aysan ahayn argagixiso kadib markii ay soo shacbaxday in madaxweyne Farmaajo uu 30 Juun 2018 kulan la qaatay madaxda ugu sareysa Alif isagoo ka raali galiyay go'aanka xukuumadda Soomaaliya ugu aqoonsatay argagixiso. Roble oo doonayay arrintan inuu ku soo kiciyo siyaasad uu doonayo inuu ku majaxaabiyo madaxweyne Farmaajo ayaa ceeb kala kulmaya kadib markii ay banaanka u soo baxday raali gelintii madaxweyne Farmaajo uu doonayo Roble in shacabka Soomaaliyeed uu ku jahwareeriyo. Ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee Garowe isagoona canaan dusha kaga tuuray maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dane oo ku fashilmay in si sax ah oo wadar ogol ah ay u sameeyaan doorashada ka soconaysa magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. sidoo kalena wuxuu carabka ku adkeeyay in Saciid Dane uu ku fashilmay inuu xalliyo shaqaaqadii dhawaan ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed oo qorsheynaya tilaabo lama filaan ah oo la xiriirta dagaalka uu kula jiro maamulka Tigray oo dhawaan dagaalo culus ku dhex mareen magaalooyin kamid ah Amxaarada iyo Canfarta. qodobada iyo kuwa kale oo xiisad badan ay barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad soo boqoto channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena mahadsanid. ciidanka Eritrea lagu soo tababaray oo dhawaan ku wajahan magaalada Muqdisho xogo hoose oo heshay calanka TV ayaa tilmaamaya in ciidamada Soomaaliya ee lagu soo tababaray dalka Eritrea ay ku soo wajahan yihiin dhawaan magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. bilo ka hor ayaa warar suuqa la soo geliyay sheegayeen in ciidankaasi qaybtood la keenay magaalada Muqdisho balse baaritaan la sameeyay wuxuu noqday mid been abuur ah. saraakiil ciidanka oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ciidankaasi oo tiradooda lagu qiyaasay ku dhawaad 7,000 oo askari ay degi doonaan xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho. ciidanka Eritrea lagu soo tababaray ayaa sida qorshuhu yahay imaanaya bilowga bisha soo socota ee Febraayo waxaana isugu jiraan booliska military ee nabad sugidda kuwa loo soo tababaray. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiil kale oo kooban ayaa loo ogolaaday inay deganaadaan xerada General Gordon oo hoy u ahayd askartii kale ee laga saaray halkaasi. wararka aan helnay ayaa sheegaya in guuto kamid ah ciidanka lagu tababaray Eritrea la sheegay inay yihiin ciidanka badda Soomaaliyeed kuwa hooshoodu ay ku koobnaan doonto. askarta imaanaysa magaalada Muqdisho ayaa mushaarkooda waxaa bixin doona sida la sheegay khadar iyadoo askari walba oo ciidankaasi ka tirsan uu qaadan doono $300 Mareykanka ah si lamid ah askarta Turkiga tababaray ee gorgor ee lacagtaasi qaata. ilawareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo taliyihiisa amniga Fahad Yaasin Xaaji Daahir in ciidamadaasi Eritrea ka imaanaya loogu talagalay inay xoreeyaan jubbooyinka meelaha ay al-shabaab ka joogaan sida Bu'aale Jilib oo ay sanado badan ka talinayaan. dadka siyaasad ahaan ka faallooda oo mucaaradka ku ah madaxweyne Farmaajo ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu doonayo inuu awood military ku qabsado dalka balse waxay imaamsan yihiin in madaxweynuhu hadda ka taliyo dalka sidoo kalena uu yahay madaxweynaha ugu cadcad arrimaha doorashooyinka dalka. balse waxaa hadda howsha ugu horeysay ee ciidankaasi qabanayaan lagu sheegay markii ay yimaadaan in la qorsheynayo waa sida wararku sheegayaan isku furidda goobaha al-shabaab go'doomiyeen sida magaalada Muqdisho iyo inta ka dhaxaysa Baydhabo. ciidankan oo awood iyo saanad military inta wata ayaa imaanaya magaalada Muqdisho maalmahan soo aadan iyagoona diyaarado dagaal ay keenayaan. kaliya ciidamadani ma wataan rasaas iyo qoryo balse waxay wataan gawaarida gaashaaman oo nooc casri ah oo dowladda Qatar la sheegay inay ka daba keeni doonto ciidamadan la deji doono General Gordon. ciidankan
ayaana noqonaya kuwii kala wareegi lahaa ammaanka guud ee dalka ciidamada Amisom maadaama ay yihiin ciidankii ugu badnaa ee lagu soo tababaro dalka dibadiisa. maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo uu salaan ka qaatay ciidamo lagu qiyaasay 4800 oo si toos ah ay dowladdu mushaaraadkooda u bixinayso. ciidamadan ayaana noqday ciidankii ugu badnaa ee lagu tababaray gudaha dalka. bishan kaliya ciidanka u soo baxay dalka ayaa noqonaya wax ka badan 10,000 oo askari iyadoo ka dhigaysa in ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay tiro ahaan ka badan yihiin ciidanka dowladda Kenya oo sanado ka hor isku tiro ahaa. madaxweyne Farmaajo ayaa gudaha dalka inta uu ka talinayay waxa uu soo saaray ciidamadii ugu tiro badnaa. haddana iyadoo doorashada loo diyaar garoobayo ayuu dadaal ugu jiraa inuu soo saaro ciidamadii ugu tirada badnaa ee dalka. dhinaca kale xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ayaa ku hungowday kadib markii ay aqoonsatay in ururka ONALIF uusan ahayn argagixiso. ra'iisul wasaare Roble ayaa qorshihiisu ahaa in arrintan lagu carqaladeeyo qaab siyaasadeed u adeegsado isagoo ka dhigaya in madaxweyne Farmaajo uu yahay shakhsiga ka dambeeyay in loo aqoonsado ONALIF inay yihiin urur argagixiso ah. balse warka soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu raaligelin siiyay ONALIF 30 Juun ee 2018 iyagoo ku kulmay dalka Eritrea. arrintan ayaa Roble ku noqotay mid fadeexa ah kadib markii qaabku wax u rabay qaab aan ahayn ee u dhigeen ONALIF iyagoona sheegay in madaxweyne Farmaajo uu horay uga hadlay arrintan kana raaligeliyay aysan ahayn urur argagixiso ah. ra'iisul wasaare Roble ayaa doonaya qaab siyaasadeed oo maalinba maalinta ka dambaysa uu ku majaxaabiyo horumarka uu ku tallaabsanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee dhawaan ka dhacay magaalada Garowe. shalay ayay ahayd markii lagu doortay 5 xildhibaan oo 3 ka mid ah ay taageersan tahay madaxweyne Farmaajo halka labada kalena ay ahaayeen Saciid Cabdullaahi Dani. ra'iisul wasaarahan ayaa sheegay in Saciid Dani oo boob ku sameynaya doorashooyinka ka socda magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland isagoona ahaa senator ka tirsan senatarada Soomaaliya ayuu ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid waxaa loo diiday inuu mar kale u tartamo kursiga senatarnimada ayagoona loo xiray senataro kale uu watay Saciid Cabdullaahi Dani si ay codka u siiyaan markii uu doorashada u soo tartamo. Cumar Cabdirashiid lama oga ilaa ay hadda inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya balse waxaa loo arkaa inuu mucaarad xoogan ku yahay Saciid Cabdullaahi Dani kadib markii uu si toos ah uga saftay isma soo saaray hormartiyeed ka dhan ah Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay inay taageersan yihiin agaasimaha hay'adda BSF ee Cusmaan Maxamuud Diyaano. haddaba halkan waxay noo wararkeennii subaxnimo fadlan daawada haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambalelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.